بسم الله. cashirkan waa horudhac u gogol xaaraya cashiro kale oo soo socda oo aasaas u ah maadada xisaabta. Aniga waxaa la ii xilsaaray inaan kasoo bilaabo hoos, ku dar, ka jar, ku dhufo, u qaybi, jajab iyo wixii lamid ah. Saaxiibkii Cismaanna wuxuu qaabilsan yahay aljabra. Labadeennaba waxaan ku dadaali doonaa inaan cashirada u sharaxno sida ugu sahlan ee uu arday Soomaaliyeed u fahmi karo. Intaa kadib aan u guda galno casharkeena annagoo daafur uga dhigayno su-aashan soo socota. Waa maxay xisaab? Su-aashan siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabay, laakiin annaga waxaan qaadanaynaa qeexitaanka ugu sahlan ee uu arday bilow ah fahmi karo. Xisaabta waa barashada numberska iyo sida u shaqeeyaan, ama qeexitaanka labaad oo ah xisaabta waa cilmiga numberska iyo sida u shaqeeyaan. Haddaba nambarada aan isticmaalno waxay ku salaysan yihiin systemka loo yaqaano 10ka digit oo kala ah sida soo socota: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Systemka waxaa loo yaqaanaa the 10 digits kasoo bilow 0 ilaa 9. Markaad u fiirsato digitskan mid u eg kuma jiro, laakiin ka waran nambarada 9 ka weyn. Tusaale ahaan 10 haddaan qoro, digit miya? Ama 49 digit ma dhihi karnaa? Ama 897. Haddaan isweydiino, kuwan waa garanay, waxaan nidhi waa systemka loo yaqaano 10 digit. Kuwan ka war markaa u fiirsato, mar labaad u fiirso, 10 waxay ka timid systemka hal oo halkaas ah iyo 0. 49na waxay ka timid nambar cusub ma ah, systemkay ka timid 4kii iyo 9kii. sidoo kale 897 waxay ka yimaadeen 8 9 iyo 7. soo koobay hadalkee, nambar walba oo 9 ka weyn digit ma aha ee waa numeral. Digit waxaa la yidhaahdaa 10kan kor ku qoran laga soo bilaabo 0 ilaa 9. Intaas la soo fahnay, waxaan bilaabaynaa xisaabteena qaybtii ugu horreysay oo ahayd addition ama isu geyn. Laakiin intaan u gudan galin ka hor, fadlan istijaabi videoga jooji, xisaabtan kuu muuqata maskaxda isaga dar, qalin iyo warqad ma loo baahnaba. 1 daqiiqa haysataa, haddayna bilaabatay. oo kuu jeeda abbaa, adiga dhan waa faraxsantahay amaana, wallaahi bilaahi waa isku bagboogaysaano waa ka baxsataan ku dhahay duqa 1 daqiiqo intii ku soo qarramsatay. laakiin is'alihi abbaa intaas farajocsi lahayd, waa fahantano. hadday sheeko bilowgeeda bilaabanay abbaa, buuggaada soo qaado, qalinkaada soo qaado, koob shaah oo kulun hor u soo qaadano. yaa aniga adiga fasalkaanu balna jiljilaaca iga dhaaf saaxiibo, isku tiiriya soo adkee, haddaan ku sugay. xisaabfalada waxaa ugu horeeya isu geynta. nambarada aan rabno inaan isku geyno waxaa la isugu dari karaa 2 qaab oo kala duwan, iyagoo isdhinac yaalla ama iyagoo is-hoos yaalla. labadan qaab ka isticmaashaba natiijada waa isku mid. waxaa xusid mudan markii aan isku darayno
nambaro hal god ah sida 4 iyo 3 ama nambaro laba god ah ama ka badan way kala duwan yihiin. tusaale ahaan waxaan ku hormaraynaa kuwa hal godka ah. isku dar labadan 4 ku dar 3 waa 7. 9 ku dar 8 waa 17 ama 17 kaa doonta dheh. weli waxaan ku jirnaa kuwii halka godka ahaa. aan qorno 7 ku dar 6 waa isku daris. haddaan 7 ku daro 6 waa 13. sida kuu muuqata markaan isku darno labada tiro oo min halka godka ah natiijada wada qoranay. laakiin ka waran haddaan rabo inaan isku daro labadan god. waxaan rabaa 28 inaan ku daro 15. marka hore waxaan isku darayaa xisaabta midigta. 8 5 ku dar waa 13. 13kaas ma wada qoranaysid sidii kuwaan aan sameyn oo kale, sababtoo ah inta xisaabaa naga jirta laakiin halkaas xisaab nagama olin. maadaama ay inta xisaab naga jirto waxaan sameynaynaa xisaabta midigta taalla, nambarka midigta yaalla aan qoranaynaa. nambarkan bidixda xigana waxaan ku daraynaa kan ugu koreeya oo asna bidixda xiga. 1 ku dar 2 waa 3. halkan usii geey 4. qaabkaasaa sax. bal hal tusaale kale oo dheeraada aan sameyno. oo ku labada god ah. tusaale ahaan 2 4 waxaa ku dartaa 3 8. sidaan hore u sheegnay midigka bilow 4 ku dar 8 waa 12. la soco ma wada qorno 12 ma wada qori karno. xisaabta midigta noo taalla aan hoosaas dhiganaynaa. tan bidixda taallana waxaan ku daraynaa xisaabtan bidixda taalla kan ugu koreeya. 1 waxaa ku dartaa 2 waa 3. 3 kale u gee 6. qaabkaas nala dhaqmaynaa. good job.